Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waa salaamayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kastoo aad joogtaan. Waxaan rabaa inaan idinla wadaago arrin soo cusboonaatay bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan North America. Arrintaas oo intii lagu jiray coronavirus maxaa soo kordhay, maxaa bulshada dhexdeeda ku soo kordhay maadaama dadka ay guryaha joogeen, magaalada iyo businessyada iyo shaqooyinkii ay xirnaayeen. haddaba maxaa dhacay, maxaase ku soo kordhay community-ga Soomaaliyeed ee ku nool North America. waxa ku soo kordhay waxaan arki jirnay intaan xanuunkan coronavirus adduunka uusan imanin ka hor aroosyo badan oo qarashaad badan lagu bixinayo, oo xaflada la dhigayo waaweyn, hoolo la kiraynayo, fanaaniin loo wacayo, macnaha aroos aad looga shaqeeyo, lacag badan ku baxayso, qarash badan ku baxayo in uu dhici jiray. haddaba taas way isbedeshay, waxayna isu bedeshay sidan. dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed ayaa isguursaday intii coronavirus dhexdiisa lagu jiray meel kasta oo gobolada Mareykanka ka tirsan. haddaba sidee ayuu arooskaas u dhacay, ama sidee ayuu maaragtay uga duwanaa aroosyadii hore ee intaan xanuunkan coronavirus u imaanin dhici jiray? wuxuu uga gadisnaa ama uga gadisan yahay aroosyadii badnaa oo qarashka badan ku baxayay horta ma suurtoobaynin, sababtoo ah wadankoo xirxirnaa, meelihii xafladaha lagu dhigan lahaayo xiran, isu socodkii dadka iyo bulshada oo kala xiran. marka waxaa dhacday in dhalinyaro badan ay go-aan ku gaareen inay guurkooda ay xilligan ka dhigtaan, waxayna noqotay oo lagu qasbanaaday gabdhihii wiilasha ku qasbi jiray inay maaragtay aroos weyn u dhigaan, oo xaflad la dhigo, fanaaniin looga waco, oo hool kireeyo, oo party la dhigo. waxaa ku dhacay in arrintaasi aysan suurtagal ahayn. wiilashiina iyagoo ka faa'iideysanaya arrintan jirta ayay waxay ku dadaaleen sidii gabadha ay wada socdaan ama ay jecel yihiin gabadha dhicin lahaayeen inay meher dhigtaan, meherkooda la dhigo, xaflad yar iyadana guriga ay ku samaysato, keeg yar lasoo gado, asxaab yar oo kooban oo familka ama qaraabada ama intii dadka ku dhow intii iman karta oo aan badnayn ay yimaadaan, halkaasna la yiraahdo congratulation, aroos wacan, aroos lagumana raago, marka good to go, sidaasay gurigooda ku tagaan. waa arrin aad u farxad badan maadaama dhalinyarada Soomaaliyeed ee wiilasha qurbaha ku nool aan ognahay xaalado badan inay ka jiraan, wiilashu iyagoon isku duruuf ahayn, qaar familiadooda aysan la joogin oo macnaha ay kaligood yihiin, qaar badan aysan familiadooda wax badan ka helin, iyo qaar familiadooda garab ka hela intaba. marka dhibaatooyin badan ay kala kulmi jireen markay guursanayaan, oo qarash badan iyo awoodooda ka badan marka loo fiiriyo nolosha wadanka lagu nool yahay. haddaba hadda sidaas arrintaas way isbedeshay, si yar oo fudud qoota abo ay ka shidan tahay, ma fahantay? macnaha arrinta waxay kusoo dhammaatay meherka ha dhaco, keeg yar ha la soo qaato, social media asxaabtaada inta ay isku xirantihiin kula share garee, congratulation, simple as that. saas reer ku isme. marka arrintaas waxay faa'iido badan u tahay wiilasha, wiilal badan oo gabdho la socda. waxaan kula talinayaa inay hadda ka faa'iideystaan, ay awoodda saaraan siday hadda uga aadin lahaayeen intaan wadanka dib loo furfurin, walow hadda soo furfurmaya laakiin weli aysan arrimahaas furfurmin, qaabka aroos iyo waxaas loo dhiganay aysan furmin. marka ha laga faa'iideysto, ragga ayay gaar u tahay, ka faa'iideysta. gabdhaha advantage-kiinaan ha misgaraynina, ha sugin, dib ha u sugin, inta waxaanu socdaan ka faa'iideyso meel kastoo aad joogtid, wadan kastoo aad joogtid. assalaamu calaykum wa salaamaya akhyaaray. subscribe channelka saara, like iyo share-ta, waa xaggiina. ha igala bakhaylina, lacag kuma aha, anigana waxbay taraysaa. so subscribe iyo saara, like iyo share-ta, wixii dambe soo kornana halkaan aan ka wada soconaynaa. salaama.